السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا وما هتسنتهين ما أنت وثلاثة وأنا لحية طبعا كبيش اللي حاد جون سنة كلا بدو كن إيه اللحية لباتنك مقال كانوا حربائنا ندي كل وذاقه كبر الصومالية أو كم إذا هادت كي كو إدسنا كيف فيدين أو فيوجر أو شلي الحكومي إمس السنة أي قبضنا لجو حكومي دعوة إمس السنة أي دونيين لجو حكومه قرين كيدو إمس السنة أي دونيين garsooruhu markii ay xukumaysay maxay tiri gabadhan waxa ay tahay marwada ninkii isi soo dhiibay arbacadii la soo dhaafay ee Saciid Cabdullaahi Ereg xaaskiisa waaye isagana goorma ayaa maxkamadda la hor keenaya imise lacaga ay ku eedeysan yihiin inay qaateen arrimahaas oo ayaan idinla wadaagaya gabar kale oo Soomaali ah oo iyaduna dambigeeda horay u qiratay kiiska Feeding Our Future oo iyadana maanta la xukumayo imise lacaga ayaa gabadhaasina ku maqan dacwadoogayaashuna imise ayay doonayaan in lagu xukumo waan idinla wadaagaya intii howlgallada ciidamada ICE ay ka wadeen magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul waxaa jiray dad Soomaali ah oo loo xirxiray in ay qalalaasa sameeyeen dadkaasi waxaa ka mid ahayd gabar Soomaali ah oo dowladda federaalku dacwada ay ku soo ogtay laakiin shalay garsoore federaal ah ayaa gabi ahaanba dacwadahaasi tuuray kadib markii dowladdu ay wax cadayna ay la imaan waysay arrintaasina waan idinla wadaagaya heshiiskii Iiraan iyo Mareykanka dulduleelo fara badan ayaa ka soo baxaya Israa'iil Lubnaan ayay duqeysay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi saaka shir jaraa'id ayuu qabtay arrintaasi muxuu ka yiri iyo maraakiib bilowday in ay marinka Hormuz ka gudubtana waan idinla wadaagaya Trumpna Faransiiska ayuu ku sugan yahay halkaasina waxa uu kula kulmay madaxda dalalka Qatar iyo waliba Imaaraadka arrimahaas oo idilna waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada managnahay dacwadaha kiiskii Feeding Our Future ee lacag ku dhawaad ilaa 300 milyan oo dollar ah lagu lunsaday xilligii coronavirus-ka lacagtaasi oo loogu talagalay caruurta baahan in lagu quudiyo in lacagahaasi la musuqmaasuqay dadka lacagahaasi musuqmaasuqay oo intooda badan lagu eedeynayo ama dacwadaha lagu soo oogay qaarkoodna dambiyadooda ay qirteen kuwana inta la maxkamadeeyay la xukumay Soomaali ayaa u badan haddaba dad waxaa jiro dambigooda qirtay oo xukunkoodu la sugayay waxaa ka mid ah dadkaasi gabar la yiraahdo Najmo Axmed oo 35 jir ah gabadhan iyada iyo ninkeeda oo la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Ereg waa ninkii aan idin sheegayay arbacadii la soo dhaafay dowladda isku soo dhiibay oo Kenya intuu ka soo baxay kadib markii afartii bishan FBI-du ay ku dartay liiska dadka baxsadka ah ee musuqmaasuqa ku eedeysan ee la raadinayo $150,000 la dul dhigay in uu dowladda soo wacay uu yiri waxaan diyaar u ahay inaan isi soo dhiibo dowladduna ay gacan ka geysatay sidii Nairobi uga soo bixi lahaa London oo transit ku ahaa ilaa iyo airportka Minneapolis iyo St. Paul oo ka soo degay halkaasi oo FBI-du ay ku sugayeen isla markaana lagu xiray xaaskiisa marka Najmo labadoodu waxay ku eedeysan yihiin qaadashada lacag 4.2 milyan oo dollar ah waxay dukaan la yiraahdo Evergreen Grocery and Deli ay ku lahaayeen koonfurta magaalada Minneapolis waxayna sheegayeen in ilaa iyo 3,200 oo caruur ah ay ku quudinayeen isla markaana waxaa gabadha Najmo marka dambigeeda ay qiratay bishii February ee sanadkii 2025 marka xukunkeeda ayaa la sugayay Najmo iyadu waxay ku eedeysan tahay in ilaa iyo lacag 1.4 milyan ah oo lacagtaasi ka mid ah ay iyadu qaadatay isla markaana nolosheeda ay wax ugu qabatay waxa sidoo kale lagu eedeynayaa in bangigeeda shakhsiga lacagahaasi qaarkood ay u gudbisay haddaba marka dacwadoogayaashu waxa ay dalbanayeen in lagu xukumo 21 bilood ilaa iyo 27 bilood adi ku dhawaad 2 sano oo xabsiga ilaa 2 sano iyo 3 bilood in lagu xukumo halka qareenkeeda oo Joseph Dixon la yiraahdo uu dalbanayay 6 bilood in lagu xukumo iyo 9 bilood oo xabsi guri ah iyo 2 sano oo waliba dhaqdhaqaaqeeda lala soconayo oo supervised release wax la yiraahdo ah qofkan waa la sii deynayaa laakiin dhaqdhaqaaqiisa halka uu tagayo iyo waa lala soconaya marka maadaama gabadhan dambigeeda ay qiratay ayaa garsooraha shalay xukumaysay oo la yiraahdo Nancy Pelosi waxa ay ku xukuntay 14 bilood oo xabsi ah marka waa 1 sano iyo 2 bilood ayaa lagu xukumay xabsigeeduna waxa uu bilaabanayaa oo iska soo xaadirinaysa xabsiga 15 bisha July ee 7 ee soo socota ayaana xabsigeeda uu bilaabanaya haddaba garsoore Nancy Pelosi markii shalay xukunkan ay ridaysay ayaa waxa ay tiri Najmo wadanka markii hore waa ay ka baxsatay kadib dib ay u soo laabatay
markii dacwadaha lagu soo oogay. Marka garsooruhu waxa ay tiri maadaama Najmo ay dib ugu soo laabatay waddanka si ay cadaaladda u wajahdo, baarayaashana ay caawisay. Qofku markuu dembigiisa qirto markhaati fur ayuu samaynayaa haddii looga baahdo. Marka maadaama baarayaashana ay caawisay, gacanna ay ka geysatay ninkeeda Saciid Cabdulaahi Ereg in uu waddanka dib ugu soo laabto, waa ninkii Arbacadii lasoo dhaafay isa soo dhiibay, sidaasi darteed ayay xukunka ay uga qafiifisay. Laakiin waxa ay tiri Najmo waxa ay ogeyd musuqmaasuqan inuu dhacayo, lacaga kickbagana waa ay bixinaysay. Kickbagu waa lacagta lagu heshiyo la yiraahdo hadda intaasoo lacaga aad soo dhiciso adigana intaasi ayaan ku siinaya. Marka Najmo musuqmaasuqana waa ay ogeyd, lacaga kickbagana waa ay bixinaysay, sidaasi darteed ayaa waxa ay tiri dambiga inta badan ninkeeda ayaa galay oo musuqmaasuqa lacagta ugu fara badan ku eedeysan. Laakiin iyada waxaa hadda lagu xukumay 14 bilood oo xabsi ah iyo in ay bixiso oo dowladda ay weliba si degdeg ah ku siiso lacag gaaraysa 1.4 milyan oo dollar ayaa laga doonayaa Najmo in ay bixiso. Najmo weliba waddanka dibaddiisa waxay u xawishay ayaa la leeyahay lacag 1.3 milyan oo dollar ayaa waddanka dibaddiisa ay u xawishay. ninkeeda marka Saciid Cabdulaahi Ereg oo Arbacadii lasoo dhaafay dowladda isku soo dhiibay, isagana maxkamadiisa ugu horeysa waxay noqonaysaa bisha Sebtembar ee 9aad ee sanadkan. marka Najmo intaas ayaa lagu xukumay, xabsigeeduna waxa uu bilaabay ugu eedeynayo marka caruurta cuntada ay siinayeen waxa ay dhaceen bishii Abriil ee sanadkii 2020 ilaa iyo bishii Abriil ee sanadkii 2021 ee 9aad ee sanadkan. marka Najmo intaas ayaa lagu xukumay, xabsigeeduna waxa uu bilaabanayaa 15 bisha Juulaay ee soo socota. dambiyadan dhinaca kale waxaa jirta gabar kale oo Soomaaliya oo la yiraahdo Caasha Jaamac oo iyaduna dambigeeda qiratay sidoo kale bishii February 7 sanadkii 2025 ee dhamaaday. iyadana waxaa lagu eedeynayaa lacag 5 milyan oo dollar ah in ay qaadatay arrintaasi kiiska Feeding Our Future. waxaana dacwad-oogayaashu ay dalbanayaan in 16 bilood lagu xukumo, macnaha waa 1 sano iyo 4 bilood. marka iyadana waan arki doonaa xukunkeeda maanta ayuu dhacayaa. waxa uu xabsiga lagu xukumo uu noqdana berri ayaad ogaan doontaan haddii alla idmo. intaasi ayaan ka gudbayaa sidoo kale arrinta Caasho oo iyadana xukunkeeda uu maanta dhacayo. dhinaca kale waxaa jirtay xilligii ciidamada ICE ee howlgallada ka wadeen magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul, dad Soomaali ah oo loo soo xiray inay qalalaasa sameeyeen. dadkaas waxaa ka mid ahayd gabar la yiraahdo Nasre Axmed oo 20kii bishii January ee horaantii sanadkan 2026 ay ciidamada ICE ay qabteen isla markaana ay xireen. wasiirkii cadaaladda Pam Bondi oo Trump xilka uu ka qaaday bishii afraad ayaa barteeda X sidoo kale waxa ay soo gelisay magacyada 16 qof oo 2 Soomaali ah ay ku jiraan. Nasro Axmed iyo Cabdiqaadir Nuur wiil la yiraahdo ayaa ka mid ahaa. marka Nasro waxay dowladdu ku eedeysay in ay askari ciidamada ICE ka tirsan ay weerartay oo dhibaato ay u geysatay, in ay diiday in la xiro, iyo sidoo kale ciidamada ICE in ay ka hor istaagtay in howshooda ay qabsadaan. sidaas darteed waxaa lagu eedeeyay qof qaswada ah ama qalalaasi wada ah ayaa lagu eedeeyay waana la xiray. waatii markii dambe inta la soo dayay iyada qaar ka mid ah community-ga hogaamiyaasha Soomaalida ay shir jaraa'id qabteen 21kii bisha. marka xilliga wasiirkii hore ee cadaaladda ay soo gudbinayso barteeda X ay ku soo qorayso sawirada dadkaasi la xiray iyo magacyadooda waa 28kii bishii January. marka dowladda waxaa la leeyahay hadda wax cadayn ah ayay la imaan weysay. shalay marka garsoore federaal ah ayaa gabi ahaanba xukunkaasi baabi'iyey. Nasro hadda wax dambiya looma haysto, xitaa dowladdu mar kale dacwadahaasi Nasro dib uguma soo eegi karto. maxaa yeelay waxaa la yidhi eexasho ayaa ku jirtay oo dowladdu waxay u eexanaysay saraakiishii ICE ee howlgalladaasi waday, wax cadayn ahna waa ay soo bandhigi waayeen. marka Nasro hadda waa dambi la'aan maadaama wax cadaynahay dowladda federaalku ay soo bandhigi waysay. sidaas darteedna garsooraha federaalka gabi ahaanba uu dacwadeedii meesha ka saaray, yirina mar kale dacwad dib looguma soo oogi karo. ugu dambeyntii waxaan ognahay heshiiskii isfahamka oo Mareykanka iyo Iiraan ay kala saxiixdeen habeen hore. waa kii Trump shalay markii shirka G7 uu tagay ee dalka Faransiiska ka dhacaya gaar ahaan magaalada Nice uu yiri heshiiskii qaab electronically ah ayaa loo saxiixay. dhinaca Iiraan waxa uu saxiixay afhayeenka baarlamaanka Mohamed Baqir Qalibaf, halka Mareykankana madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka ay u saxiixeen. waxaana uu madaxweyne Trump yiri marinka Hormuz qayb ahaan hadda waa uu furan yahay, laakiin si buuxda
jimcaha marka magaalada Geneva lagu saxiixo heshiiskaasi oo si rasmi ah qalinka loogu duugo ayaa la furi doonaa. Hadda warbaahinta Iiraan maanta waxay leedahay marinka Hormuz waxaa soo maray 3 markab oo kuwa shidaalka qaada oo Iiraan ay leedahay iyo 2 markab oo ganacsi ayaa gudbay. Marka Mareykankuna go'doomintii waa uu qaaday, Iiraanna marinka Hormuz waa ay furtay. Hadda qayb ahaan ayuu furan yahay oo si buuxda uma furna. Laakiin dhaqangelinta heshiiskan Israa'iil waa ay ka soo horjeesatay. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu shalay waa kii yiri ciidamada Israa'iil koonfurta Lubnaan kama soo baxayaan. Xalayna Israa'iil waa ay duqeysay koonfurta Lubnaan. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa shir jaraa'id saaka qabtay oo magaalada Tehran ku qabtay. Waxa uu yiri heshiiskan isfahamka ah waxa uu u dhaxeeyaa Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinaca iyo Iiraan iyo Xisbullah oo dhinaca. Marka waxa uu yiri waa in ay Israa'iil ay u hoggaansantaa heshiiskan xabad joojinta ah. Maxaa yeelay waxa uu yiri Israa'iil oo aan ka bixin koonfurta Lubnaan heshiiskan ma dhaqan geli karo. Waxana uu sheegay in looga baahan yahay Mareykanku in ay gacan ka geystaan sidii Israa'iil ay u xakameyn lahaayeen. Netanyahu dhinaca mucaaradka ayaa waxa ka saaran cadaadis xooggan, waxayna leeyihiin heshiiskan inaga nama quseeyo, dowladda Mareykankana iyadoo noo hadlaysa heshiis ma geli karto. Sidaas darteed marka arrintaasi dhibaato ayaa ka iman karta. Iiraanna waxay leedahay heshiiskaasi labada dhinacba waa in uu quseeyaa. Haddaba waa kan wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi oo shir jaraa'id saaka ku qabtay magaalada Tehran isla markaana dhahayay heshiiskan isfahamka ah waa in dagaalka laga joojiyaa dhammaanba qaybaha kala duwan oo xitaa Lubnaan ay ku jirto. Waxaana uu sheegay haddii dagaalkaasi ay sii wado Israa'iil in aysan Iiraan arrintaasi u dulqaadan doonin ayna ka jawaabi doonto. These two fronts, Iran and Lebanon, are quite connected to each other. And since the very first day, the Islamic Republic of Iran has considered the end of the war in Lebanon is quite connected to putting an end to the war on Iran. And at the time where we reached an agreement regarding a ceasefire, the truce was announced on all fronts, and we were confirming the Lebanon front as well. Now, we can say that the end of the war in Lebanon will be also connected and related to the end of the war on Iran. I'd like to say something now, and I want to confirm that. From our point of view, the parties of the Memorandum of Understanding, America, Israel, one side, and Iran, the second, and Hezbollah, the second front. And the end of this war is part and parcel. Lebanon and Iran, they are quite related. End of the war will be the end of the occupation, and without retreating and withdrawing from the Lebanese occupied territories, then there will not be an end of the war. So, madaxweyne Trumpna waxaan ognahay shirka G7 ayuu uga qayb galayaa Faransiiska, waxaana la filayaa jimcaha saxiixa heshiiska Geneva in uu tagi doono sida wararku ay sheegayaan oo qayb uu ka noqon doono. Maantana waxa uu la kulmay madaxda wadamada Qatar iyo waliba Imaaraadka oo dagaalku uu si aad ah u saameeyay. Waxaana uu sheegay in hadda ay ku dadaalayaan sidii xiriirkii wadamadaasi dib loogu soo celin lahaa. Marka heshiiskaasi waa dulduleelo fara badan ayaa ka muuqda. Dhinaca nuclearka wadahadalada dib ayaa loo dhigay. Waxaana sidoo kale jirta in Iiraan cunaqabataynta oo laga qaado iyo in lacagaheedii laga xanibay horey looga xanibay loo fasaxo inay ku xiran tahay qaabka ay Iiraan u dhaqangeliso heshiiskan ayaa dowladda Mareykanku ay leedahay, walow ay diidan tahay lacag si toos ah in loo siiyo dowladda Iiraan. Marka waan arki doonaa waxyaabaha kale ee heshiiskaasina ka soo kordha. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.